wacana wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 13-ka bisha Agoosto sanadka 2026 maalin khamiis ah qaybtan inta badan falanqayn ayaan kugula wadaagi doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay magaalada Gaza sargaalka muhiimka ah ee maanta lagu dilay gudaha magaalada Gaza yaraanta hubka iyo gantaalada dawladda Mareykanka ma xaqiiqaba mise waa qiyaano weyn oo socota waxaa sidoo kale aan kula wadaagi doonaa macluumaad iyo warbixin gaar ahaaneed oo ku saabsan laga soo bilaabo dilalka hogaamiyaasha ilaa midaynta qolalka howlgallada Iiraan ma waxay dib u qaabaynaysaa nidaamkeedii dagaalka waa kuma jiilalka cusub ee garabka adag ee talada dalkaasi Iiraan la wareegaya Masar ma waxay tallaabo u qaaday xalinta khilaafka Sacuudiga kala dhaxeeya kadib heshiiskii magaalada Makka oo wax walba banaanka ay yimaadeen qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka magaalada Gaza ayaa sheegtay in taliye sare oo lagu magacaabo Jamaal Abu Kamil oo ahaa agaasimaha booliiska ee magaalada Gaza in maanta oo khamiis lagu dilay duqeyn ay ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen gudaha magaalada Gaza oo lala beegsaday gaarigiisa xilli uu marayay wadada Al-Rashiid ila ka tirsan adeega gurmadka degdega iyo gaadiidka ambulanska ayaa warbaahinta u sheegay in gaarigaasi si toos ah loogu dhiftay gantaal xilli uu ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo Sheikh Ajliin ee magaalada Gaza weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay Abu Kamil halka dad kalena la sheegay inay ku dhaawacmeen kuwaas oo goobta ku sugnaa waxaana loo qaaday xarumaha caafimaadka koonfurta magaalada Gaza ilaha caafimaadkana waxay sheegeen in cisbitaalka Naasir lagu magacaabo inuu xaqiijiyo dilka qof Falastiini ah kuwa kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii weerar diyaarad aan duuliye lahayn ee Israa'iil ay la beegsatay xaafadda lagu magacaabo Al-Almal oo dhacda galbeedka magaalada Khan Younis oo gudaha magaaladaasi Gaza ah sidaa daraadeed tirada dadka lagu dilay weerarada Israa'iil ee Khan Younis iyo sidoo kale waqooyiga magaalada Gaza ayaa gaaraya ilaa 2 ruux sidoo kale dhaawacyo kale ayaa la diiwaan geliyay dhacdooyinkan ayaa kusoo beegmaya maalmo yar uun kadib markii duqeymaha Israa'iil iyo dilalka bartilmaameedsiga ah ay ka geysanaysay magaaladaasi Gaza iyadoo oo Falastiiniyiinta ay ku tilmaameen tani inay qayb ka tahay jebinta heshiiskii xabajoojinta ee hore loo gaaray Israa'iil ayaa si cad u sheegtay ciidamadeeda in aanay ka saari doonin gudaha magaalada Gaza dhinaca kalena warshad la sheegay in ay soo saarto nidaamka difaaca hawada oo ku taala agagaarka magaalada Rome oo caasimada dalka Talyaaniga ayaa la sheegay dab inuu ka kacay lama sheegin dabkaasi oo qarax ahaa waxyaabaha sababay macluumaad kale oo dheeraadana lagama bixin waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa maadaama warkan uu soo kordhay inta aan diyaarinta barnaamijkan aan ku guda jirno wax walba oo macluumaadyadaasi ka soo kordhana insha Allah barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa aad baad u mahadsantahay markaan aan eegno waxa hadda ka soconaya gudaha hay'adaha amniga iyo militariga ee dawladda Iiraan ma ahan oo kaliya in saraakiil cusub lagu bedelayo kuwii hore ee lagu dilay dagaalka ama kuwa cusub xilka laga qaadayo sababta ugu weyn ee dawladda Iiraan ee arrintan u sameynayso waa in la dabaqo cashiradii laga bartay dagaalka iyo dilalka lagu bartilmaameysanayo madax sare oo dawladda ka tirsan iyadoo dhinaca kalena la doonayo dib u hagaajin xooggan in lagu sameeyo ciidamada ammaanka waati aan warbixintii hore idin kula wadaagay isbedelka dawladda Iiraan ay doonayso iyada oo wax laga baranayo cashiradii ahaa dagaalkii ugu dambeeyay ee dhacay ee dhexmaray Iiraan iyo Mareykanka markii dhowr taliye oo muhiim ah la dilo ama xarumaha taliska la beegsado dhibaatada ugu weyn ma ahan oo kaliya qofka la waayo waxaa sidoo kale khatar galaya silsiladaha amarka taasoo micnuhu yahay in xogta goobta dagaalka uu ka imaanayo ay gaabiso go'aanaduna ay dib u dhacaan taliyaha ugu sarreeya ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iiraan ayaa hadda doonaya isbedel weyn inuu sameeyo Iiraan waxay hadda isku dayaysaa dhibaatooyinkaasi iyo kuwa kale oo ay ka baratay cashirka intii dagaalka uu socday gabi ahaanba in wax laga bedelo oo la xalliyo mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan waa in xarunta Qaatim al-Anbiya oo ah xarunta ugu weyn ee isku dubridka howlgallada military si dhow loogu daro taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee dawladda Iiraan arrintaani si fudud marka loo fahmo waxay ka dhigan tahay in qolka laga maamulayo dagaalka iyo meesha go'aanka sare laga gaarayo la isku soo dhaweeyo tusaale ahaan haddii weerar gantaal ah dhaco ama diyaarad aan duuliye lahayn la ogaado xogta uma baahan doonto inay marto xarumo badan ka hor inta aysan gaarin hoggaanka sare waxaa la doonayaa in xogta si degdega loo helo go'aankana si degdega u noqdo mid ay ciidamada ay fuliyaan taasina waa sababta magacaabista Cali Cabdilaahi ay muhiim u tahay
waxa uu hore u hogaaminaya cali khaatimil ambiyaa. taas waxay ka dhigan tahay inuu si fiican u garanayo sida loo maamulo howlgallada wadajirka ee u dhexeeya ciidanka caadiga ah iyo ilaalada kacaanka iyo qaybaha kale ee militariga. hadda ninka qolka dagaalka kasoo shaqaynaya ayaa loo qaaday inuu noqdo madaxa ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee dowladda Iiraan. taasina waxay diraysaa fariin ah Iiraan waxay doonaysaa hogaanka sare in si toos ah u fahmayo goobaha dagaalka. magacaabista ninka lagu magacaabo Qiyumaris Haydari waxay dhanka kale ay muujinaysaa in Iiraan aysan dooneynin in dhammaan awoodooda lagu koobo ciidamada ilaalada kacaanka. Haydari wuxuu ka soo jeedaa ama uu ka yimid dhanka ciidanka caadiga ah, gaar ahaan ciidamada dhulka. sidaa daraadeed joogitaankiisu wuxuu xoojinayaa fikradda ah in ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan iyo kuwa caadiga la doonayo inay ka shaqeeyaan hal nidaam oo isku dhafan. marka la eego Axmed Faahidi oo isagana qabiir ah loona magacaabo jago sare, ayaa waxaa timid su'aal ahayd Mareykanka beegsigii uu beegsaday saraakiishii ugu muhiimsaneyd dowladda Iiraan miyuu ku qaldamay xisaabaadkiisa. isku daygii la doonayay in madaxa laga gooyo nidaamka dowladda Iiraan ma waxa uu dhalay nidaam hogaamineed oo ka adag midkii hore, ka adkaysi badan kana diyaarsan marka la eego dhanka dagaalka cusub. waxaa hadda ka soconaya gudaha hay-adaha militariga ee dowladda Iiraan uma eka markaasi shakhsiyaad oo kaliya in la magacaabayo. cali cabdilaahi waxaa loo magacaabay madaxa taliska guud ee ciidamada qalabka sida. Qiyumaris Haydari waxaa loo magacaabay ku-xigeenkiisa. Axmed Faahidi waxaa loo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan. Mustafa Cizaadi waxaa loo magacaabay ku-xigeenkiisa. cali Azmaayi waxaa loo dhiibay hogaanka ciidamada badda ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan. Xuseen Taib wuxuu noqday taliyaha ciidamada Basij loo yaqaano, halka Muxsin Rezaai isagana dib uu ugu soo laabtay xarunta go'aan qaadashada isagoo noqday xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee dowladda Iiraan. waxa guud ahaan magacyadani midaynaya waa hal arrin. dhammaantood waxay leeyihiin waaye aragnimo dheer ah oo dhanka dagaalka, amniga iyo maaraynta xaaladaha qallafsan. sidaasi daraadeed waxaa muuqanaya in garabka adag ee dowladdaasi Iiraan ama waxa siyaasadda loogu yara Hawkins ay si weyn uga soo baxayaan dusha sare ee dalkaasi Iiraan. taasi micnuhu ma ahan in Iiraan markii hore ay ahayd dal ay maamulayaan dad jilicsan oo nabadoon ah oo kaliya, laakiin waxa isbedelaya waa miisaanka awoodda ee gudaha ee xarumaha go'aan qaadashada. dilalka hogaamiyaasha iyo jibinta amniga kadib, miisaanka ragga ka socda hay-adaha militariga iyo ammaanka ee dalkaasi Iiraan ayaa sii kordhay. mudnaanta cusubna waxay u muuqataa mid cad. waa marka koowaade waa awoodda wax celinta iyo sidoo kale cabsigelinta cadowga. waa marka labaade waa ilaalinta nidaamka iyo xarumaha hogaanka. waa marka saddexaade waa diyaargarowga dagaal kale haddii lagu qasbanaado. magacaabista ugu muhiimsanna waa jenaraal cali cabdilaahi oo loo dhiibay madaxtinimada taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Iiraan. muhiimadiisa kuma koobna oo kaliya xilka uu qabtay, balse waxay ku jirtaa halka uu ka yimid. wuxuu hore u hogaaminaya xarunta dhexe ee Khaatimil Ambiyaa, mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee howlgallada wadajirka, kana shaqaysa isku xirka ciidamada caadiga, ilaalada kacaanka iyo qaybaha kale ee sirdoonka dowladda Iiraan. taas waxay ka dhigan tahay in ninkii ku jiray qolka tooska ah ee laga maamulaya dagaalka hadda in loo wareejiyey madaxa hay-adda ugu sarreysa ee qorsheynta iyo hogaaminta militariga. Iiraan waxaad moodaa marka dad kale oo aad u adag inay talada dalkaas ay la wareegayaan, si gaar ahaaneed dhanka ciidanka. amarka hogaamiyaha sare ee dowladda Iiraan Ayatullaahi Mujtaba Khomeini waxaa la sheegay in la go'aamiyey in xarunta dhexe ee Khaatimil Ambiyaa lagu daro taliska guud ee ciidamada qalabka sida. Mujtaba Khomeini isagana waxa uu doonayaa nidaam kale oo tii hore ka adag inuu sameeyo, maadaama uu hadda talada dalkaasi la wareegay. waxa kale uu doonayaa inuu meesha uu ka saaro cid kasta oo la tuhmi karayo inay jilicsan tahay ama ay la shaqayn karta cadowga. macnaha labaad ee arrintani ku jira waa diyaargarow dagaal haddii Iiraan ay ku qasbanaato. soo bixitaanka shakhsiyaadkan iyo xilalka loo magacaabo waxay ka dhigan tahay Iiraan inaysan qaadan go'aan dagaal oo kaliya, laakiin waxa uu muujinayaa in dadka maanta haya xilalka ugu muhiimsan ee hay-adaha amniga inay yihiin rag khibradooda ay si weyn ugu sarreyso maaraynta dagaalka iyo xaaladaha adag, halkii ay ahaan lahaayeen dad lagu yaqaana tanaasul marka cadaadis la saaro. macnaha saddexaadna waa in dagaal mustaqbalka dhaca Teheraan aysan u arki doonin dagaal hal jiha oo kaliya. ciidanka caadiga, ilaalada kacaanka, ciidamada badda, hay-adaha amniga, Basij iyo golaha sare ee amniga qaranka dhammaantood isku mar ayaa dib loo habaynayaa. taasoo ka dhigan in Teheraan dagaalka ay u aragto wax isku mar ah dhanka militariga, amniga, sirdoonka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. su-aasha ugu dambaysa ay taagan waxay tahay Iiraan ma waxay dhisaysaa awood wax celin oo ka hortagta dagaalka xiga, mise kor u kaca garabka adag ee hay-adaha militari iyo ammaanka dowladda dalkaasi
ayaa waxuu calaamad u noqonayaa in gobolka uu galay marxalad kale oo ka kulul midii hore. mise Iiraan waxay doonaysaa inay ka dhabayso go'aankeedii ahaa in difaaca ay ka baxdo oo ay ku biirto dowladaha weerarka fulin karaya si la mida sida Mareykanka iyo Israa'iil ay u fuliyaan weerar marka ay dareemaan danaha dalalkooda in caqabad lagu yahay. aragtidaada nala wadaag, laakiin muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay. su-aasha ah in Mareykanka uu wajahayo yaraanta hubka iyo gantaalada mase si ula kaca inuu u bunbuuninayo xaaladda si uu u marin habaabiyo dowladda Iiraan, Ruushka iyo Shiinaha, jawaabteedu ma ahan mid madow iyo caddaan ah. xaqiiqadu waxay u dhaxaysaa labadaasi aragti. marka hore ma saxna in la yiraahdo Mareykanka hubkiisa ama gantaaladiisa way idlaadeen. Washington weli waxay haysataa kayd military oo aad u weyn, waxna awood ay u leedahay in dagaal ay gasho, saldhigyadeeda ay difaacdo, duqeymo ay fuliso, isla markaana ay taageerto xulafadeeda. sidaa daraaddeed sawirka ah in baqaarada Mareykanku ay maran yihiin waa buunbuunin. sidaasi waxaa dhahaya falanqeeyo lagu magacaabo Monis Firwani. waa nin u dhashay Masar, waxa uu taagan yahay Mareykanka khiyaano ayaa ku hoos jirta aragtidiisa iyo hadallada la buunbuuninayo. waxa kale uu yidhi dhinaca kale waa qalad in la rumaysto in kaydka Mareykanka uu yahay mid aanan xad lahayn. dhibaatada dhabta ahi waxay ka jirtaa buu yidhi hubka aadka u casrisan sida nidaamka THAAD, Patriot iyo SM-3, kuwaas oo aanan loo soo saari karaynin si degdeg ah sida la mida risaasta caadiga. gantaalka noocaasi ah waxaa lagu ridi karayaa dhowr ilbiriqsi gudaheed, laakiin soo saaristiisa mid kale oo bedelo waxay u baahan tahay bilo iyo sanadooyin. waxaa jira qadad wax soo saar oo awoodooda ay xadidan tahay, qaybo elektroonig, matooro, nidaam hagitaan iyo tijaabooyin farsamo oo dhammaantood waqti u baahan. sidaasi daraaddeed dhibaatada ugu weyn ma ahan buu yidhi in Mareykanka maanta gantaal ay waayeen, balse waa in xawaaraha isticmaalka hubka mararka qaar ay ka dheerayn karayaan xawaaraha wax soo saarka warshadaha. taasina waxay khubaradu ay ku tilmaamaan inay tahay dagaalka kaydka hubka. haddii Mareykanka muddo gaaban gudaheed uu isticmaalo tiro badan oo gantaalo difaaca, wuxuu ku guulaysan karayaa inuu iska caabiyo weerarka hadda socda, laakiin isla waqtigaasi wuxuu luminayaa qayb badan oo muhiim ah kana mid ah kaydkii loogu talagalay xaalado kale oo mustaqbalka dhici karaya. arrintan ayaa sii adkaanaysa sababtoo ah Mareykanka hal jiho oo kaliya uma diyaarsana. wuxuu bariga dhexe uu kula loolamayaa dowladda Iiraan, Yurubna waxa uu ku wajahayaa khatarta dalka Ruushka. badweynta Pacifica waxay isku hayaan Shiinaha iyo Taiwan, halka Kuuriyada Waqooyi weli ay tahay khatar kale oo joogto ah. sidaa daraaddeed gantaal kasta oo maanta bariga dhexe laga isticmaalo waa gantaal aan biri si toosa looga heli karaynin meel kale ilaa beddelkiisa la soo saaro. su-aasha ugu weyn ee Pentagonka markaasi ma ahan oo kaliya ma haysanaa gantaalo nagu filan dagaalka hadda socda kadib, laakiin waxaa la muhuraana haddii maanta aan isticmaalno wax kasta maxaa inoo haraya. halkaas ayay kaydka yaraantiisa ay muhiimad istaraatiijiyadeed u leedahay. waxaa kaloo jira dhibaato kale oo muhiim ah. Mareykanka cadowgiisa kuma qasbo in uu burburiyo nidaamka difaaca ee cirka sida Patriot iyo THAAD. waxaa mararka qaarkood ku filan in lagu qasbo oo kaliya in si joogto ah gantaalo ay u ridaan. haddii gantaal ama daroon jaban Mareykanka ay ku qasabto inuu isticmaalo gantaaladii looga hortagi lahaa, taas waxay ka dhigan tahay in qalab badan la adeegsan doono. waxa uu falanqeeyaa hadda uu leeyahay markaa Iiraan gantaaladii tirada badnaa ay u isticmaashay weerarkii ka dhanka ah dowladda Mareykanka waxay ka dhigan tahay mid ku qasabtay Mareykanka inuu hadda kaarta kale ama aragti kale u qaato, isagoo ka baqaya mustaqbalka wax soo saarka gantaaladiisa. yaana labada dhinac loo rumaysan buu yiri waa suuragal in Mareykanka uu waayo gantaalo badan, laakiin waxa uu ku xisaabtamayaa dhanka wax soo saarka. dhinaca kale dowladda Masar waxay u muuqataa inay qaaday tallaabooyin lagu dejinayo xiisada kala dhaxaysa boqortooyada Sacuudiga kadib murankii ka dhashay isbahaysigii magaalada Maka iyo su-aasha weli taagan ee ayaa diiday in Masar qayb ay ka noqoto isbahaysigan. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa xiriir telefoonka la sameeyay dhigiisa Sacuudiga. intii wadahadalkaasi uu socday waxaa la sheegay in uu ku celiyay hadal muhiim ah oo ah Qaahira marar badan inay adeegsato, kaasoo ah in amniga dalalka khaliijka uu qayb ka yahay amniga qaranka ee dowladda Masar, isla markaana khatar kasta oo ku timaada khaliijka Masar ay u aragto khatar iyadana si toos ah u taabanaysa. hadalkaasi ayaa si gaar ahaaneed muhiim u noqday sababtoo ah wuxuu imaanayaa xilli ay socdaan dood ah yaa Masar u diiday isbahaysiga qayb inay ka noqoto. waxaa jira laba sheeko oo waaweyn oo arrintan ku saabsan. mid waxay leedahay Sacuudiga ayaana doonaynin in Masar lagu soo daro isbahaysigan sabab la xiriirta kalsooni darro siyaasadeed iyo aragti ah in Qaahira aysan noqon karin saaxiib lagu tiirsanaan karayo marka xaalado amni ama dagaal u yimaado.
arrinta kalena waxay warbaahintu ay leedahay Masar lafteeda ayaaba diiday in isbahaysigan ay ku biirto iyada u aragtay isbahaysiga inaanu waafaqsaneen xisaabaadkeeda istiraatiijiyadeed isla markaana aysan doonayn inay gasho nidaam amni oo Sacuudiga uu hogaaminayo. ilaa hadda doodahaasi si rasmi ah looma soo afyarin, waana sababta ay warbaahinta, baraha bulshada iyo falanqeeyaasha ay si xoogan arrintan ay kaga hadlayaan, iyadoo xitaa ay soo baxayaan doodo la isku barbardhigayo awoodda Masar iyo boqortooyada Sacuudiga. waxaa intaas sii dheer in wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ay soo saartay bayaan kale oo warbaahinta iyo baraha bulshada si weyn ay uga hadlayaan oo ah xogta ku saabsan dowladda Masar iyo inay diiday qayb ka noqoshada isbahaysigan. bayaanka waxa loo fasirtay inuu jawaab dadban u yahay warbixino shisheeye oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn u faafinayay baraha bulshada macluumaadka ku saabsan khilaaf weyn in uu u dhaxeeyo dowladaha Masar iyo sidoo kale Sacuudiga kaas oo ka dhashay heshiiskii Maka. dadka dhaliila siyaasadda dowladda Masarna waxay arrintan ay ku tilmaamayaan in xukuumadda Qaahira si cad aysan u bixin xog ku filan oo ku saabsan dhacdooyinka amni ee waaweyn. haddana warbaahinada reer galbeedka ayaa xogtan si gaar ahaaneed u dabaqaya. xiriirka Masar iyo Sacuudiga dhinaca dhaqaalaha marka la eego waxaa la sheegaa inuu aad u sareeyo, inkastoo Sacuudiga maalgelin xoogan uu ku sameeyay gudaha dalkaasi Masar, haddana Imaaraadka Carabta ayaa dhankiisa door ciyaaraya sida wararku ay sheegayaan. macluumaadkan waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah. barnaamijkeennii duhurnimo qodobadii ka haray haddii aan soo koobo, wakaaladda wararka ee Ruushka ee taas lagu magacaabo ayaa Khamiista maanta sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu booqday jasiiradda Eturib lagu magacaabo oo ka mid ah silsiladaha jasiiradda Kuril ee ay muddada dheer isku hayaan Ruushka iyo Japan. muranka jasiiraddan ayaa yimid kadib markii sababaha ugu weyn ilaa maanta la hor istaagay ee tahay in Ruushka iyo Japan ay si rasmi u saxiixeen heshiis nabadeed oo soo afjaraya wixii ka dhashay dagaalkii labaad ee dunida. intii booqashada uu ku joogay Putin wuxuu halkaasi ugu tagay warshad lagu farsameeyo kalluunka oo halkaani ku taala kadib markii uu kormeeray dhoolatusyada ciidamada badda ee dowladda Ruushka ay sameynayeen xilli ay ku sugnaayeen bariga fog ee dalkaasi. muuqaalo ayaa la baahiyay. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Japan ayaa sheegay in Tokyo ay si xooggan uga soo horjeedo booqashadan, waana ay dhaleeceeyeen waxaana ugu yeereen dhulalka waqooyi ee ay iyaga leeyihiin. murankaasi weli waa u dhaxeeya. macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa. wax walba oo arrimahan ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaadna ku ogaan doontaa insha Allah. la isal muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay.